wadaaga waa Simon Hayut oo markii dambe isku bedelay magacii Simon Levitt maxaa ka socda Netflix The Tender dhibaatada ka dhacday ayaan rabaa inaan kula qaybsado waxay ku kala duwan yihiin gabadhii Norwegiga ahaa ee 250,000 u ka dhacay oo maanta isbitaalka dhimarka ah ee wadanka Norway ku jirta iyo waliba gabadhii Soomaaliyeed ee wadanka Norway ee guriga loogu soo dhacay ee dawladda Norway iyo FBI-daba u soo dhacday taasoo nin aynan garanaynin ay baratay oo ilmo yar uu ka dhalay kadibna uu yiri business baan tagayaa maxaa ku dhacay lagu qabtay Syria haddana Guantanamo ku jira hubso qofkaad guursanaysid ama baranaysid barnaamijkani uu ka yaabin doona markaad daawato Simon Levitt beenlowgii dunida ka yaabiyay ee ka dhacay dumarka dunida $10 milyan Netflix ayaad ka helaysaa ka socda waqtigan xaadir Simon Levitt imika magacii uu bedelay ayaa la leeyahay Europe oo dhan baa laga waaninayaa gaar ahaan dadka dumarka Carabta iyo waliba aniguna aan Soomaalida ku darsaday islaali gabar yahay all fashion samee ha isku baranin qof walba wuxuu doonayaa inuu ku dhaco isagoo magacii bedelay barnaamijkan hadaba eeg oo la yaabi doontaa Simon Levitt magacii uu bedelay adiguna doonayaa inuu ku dhaco أهلاً وسهلاً وذاك كسر وهذا برتمهد عبد الله كلها يوتيوب كا أنا وحوج مسارنا سياسة يا قبيلة دوارة سويا عايدة وحن أنت بدن حوج صارنا أمريكا نقطة الرمها برشدة هذا صار ليس برنامج كانوا موضوع فعيا وقايبين كرتا سبسكرايب نحن نقبل كان هاي لا ونرتي وانا تكون حد سنتهاي وذاك هذا برنامج كان ما أنت وكايا بندورة والدوكومنتري حد كسعودة Netflix oo la yiraahdo Tender the Swindler runtii aad la yaabi doonto markaad oo true history waa weekend u socda waa waxyaalo ka dhacay oo rabo adigana inaan kaaga digo halkana ka dhacday meel badan ka dhacday wadaaga hadaba la kulan la yiraahdo Simon Hayut la garan maayo waqtigu dhashay qaar waxay yiraahdaan wuxuu dhashay 1991 qaarna waxay yiraahdaan 1998 waa Netflix documentary hadda ka socda ninkaasi waxa uu ka soo cararay dhulka Carabta iyo Yahuudda isla degto Israel la yiraahdo ayuu ka soo cararay kadib markii dambi lagu helay wuxuu yimid wadanka Finland halkaas oo saddex dumar ah oo khaa'imad fara badan ka geystay 2015 ayaa la xiray kadibna waxa la soo daayay 2017 kadib waxa loo tarxiilay mar kale wadanka waxa loo tarxiilay magaalada Tel Aviv halka ayaa haddana dambi markii lagu helay ayuu ka soo cararay wadaaga hadaba Simon Hayut wuxuu ka soo cararay Tel Aviv intaan la xirin kadib wuxuu soo galay Yurub magaciisa uu bedelay wuxuuna isku bixiyay in la yiraahdo Simon Levitt dabeecadiisii buu dib ugu noqday isagoo wadanka Ingiriiska tagay wuxuu iska register-gareeyay meel la yiraahdo internet la yiraahdo The Tender taasoo soo dhigi jiray sawirro cajiib leh oo markaa iyo dhar wada fake ah oo aad u qurux badan oo kiyaale saacad wax walba you name it taasoo markaa sawirrada meesha soo dhigo diyaarad private inuu tago meelahan lagu iibiyo ayuu isku soo sawiri jiray kadib baa halkaa uu soo dhigi jiray inuu yahay nin millionaire ah oo diamond-ka ka baac musharaca bihiin uu yahay shirkadda ugu qaalisan ee diamond-ka ee ku taala markaa Bulgaria sida uu sheegay halka hablo fara badan ayaa ninkan aad u helay sumcadiisa daway uu labisan yahay haybada iyo markuu hadlayo video yar oo 1 minute thousands hablood ayaa ku soo xirmay gabar Norwegian oo la yiraahdo Celia oo ku noolayd wadanka Ingiriiska ayaa la kulantay markaas uu maalin ballamiyay wuxuu ku ballamiyay meel ku yaala cabitaan laga cabo oo ku yaala London halka markay timid ay ka yaabtay ninkan wuxuu xiran yahay iyo sida uu hadlayo iyo waliba wuxuu bartay inuu dhageysidka sida loo dhageysto uu ku wanaagsan yahay oo aad u dhageysto hablaha gabadha impress buu noqotay wuxuu ku yiri waan ka xumahay saacadan baan private diyaarad anigu aan leeyahay raacaya waxaan tagayaa Bulgaria ma raacaysa gabadhii inay khalqashay ayay tiri imika ku raacaya gabadhii markii wuxuu geeyay gurigeeda baasaboorkii wixii bay ka soo qaadatay kadibna waxay yimaadeen airportka oo u ballamiyay markiiba internetka diyaaradda uga ballamiyay first class Bulgaria ay habeenkii hotel wada seexdeen
halkiiba maaragtay meel diamond oo wada fayga iyo dad kale wada shaqaystaan gabadhii baa ka yaabtay ninkan gabadhii wuxuu ku soo celiyay ingiriiska 3 cisho ka aamusnaa waa caqliga uu sameeyo uu dadku qaaymo gabadhii baa khalkhashay 4 cisho kadib uu telefoon usoo diray Celia way yaabtay wuxuu yiri waxaan doonayaa markaan ku fiirsan inaad noqoto girlfriend-kiga aanu cid walba ma aamino gabadhii baa sidaa gabadhii oo jira waxaad noqonaysaa girlfriend iyaduna ay ogolaatay isagoo Netherlands jooga kadib Amsterdam ayuu la soo hadlay gabadhii wuxuu ku yiri dad badan oo cadow aan leeyahay marka waardiyahaygii baa la dilay waxaan loo maleynayay inaan anigu ahay marka waxaan doonayaa inaan magacayga iyo aan isticmaalin kaararkayga waxaan doonayaa si degdeg ah $25,000 inaad ii soo qaado anaa ku siinaya halkan aan ka siinaya adoo waxaan doonayaa inaan isticmaalo American Express kaaga gabadhii run bay mooday waxay tiri maadaama ninkan uu magac leeyahay una loo ugaarsanayo caawi oo maaragtay lacagtan ha ku siiyo 25,000 buu markay ku keentay ayuu lacagteedii maaragtay ugu bilaabay inuu diyaarad ku saaro oo ku soo wareejiyo oo Dubai ku geeyo oo ku soo celiyo waa teedii kadibna haddana wuxuu yiri anaa ku wada siin doono mar qore soo dir 70,000 bay kaar haddana u maraysay 80,000 bay haddana maraysay 250,000 markay marayso ayaa waxa ka joojiyay lacagtii American Express oo la yiri sidee wuxuu jiraan meesha aad ku socotaa khatar baad ku jirtaa gabadha inta lacagteedu ku wareejinay sidaas oo tahayna gabdha kale oo iyaduna mission degan ayuu iyaduna week kale lacagtii gabadhan Celia ku sameeyay sidaa halka markii marayso ay gabadha waxay tiri waxaan u baahday lacagtii American Express waa laga xiray wuxuu u diray check beena oo 500,000 wuxuu kala sameyn karaa ku keena lacag labiska iyo sidoo ka muuqan yahay tender iyo boqolaal qofna sidaas u soo xiraan week walbana mid gooni wata Celia waxa loo sheegay American Express u sheegay iyo booliiska Ingiriisku ninkan inuu yahay nin waxaan wada been waxba kama jiraan wixiisi gabadha waxay ku soo noqotay wadanka Norway halkan la joogtaa hooyadeed bay u tagtay kadibna waxa ku dhacay maadaama 7 credit card ay gashay lacag 450,000 ay khasaartay gabadhii waxay gashay isbitaalka dhimirka imika waxay ku jirtaa isbitaalka dhimirka ee Norway kala bal Google-ka ku qora magaciisa Simon Levy bal ku qora the tender imika ku qor intaad la hadlayso magaciisa yaab baa ku leeyahay sawirada iyo background iyo sidoo uu yahay soo socda gabadha markuu sida u galay oo iyadii ka baxay ayuu gabar kale oo mission degan oo iyadana 100,000 uu ka cunay ayaa nin journalist ah oo Norway u dhashay oo arintan baaray waa ninkan heli doona ayaa markiiba ku soo qoray The Sun jaraa'id ku yaala Mareykanka iyo Mirror-kan Ingiriiska iyo jaraa'id ku yaala isaguna Jarmalka waxay markay akhrisatay ogaatay exactly Celia wuxuu ku sameeyay inuu iyadana $150,000 uu maaragtay ka dhacay wuxuu kaloo ka dhacay 7 hablood oo kale oo Norway Sweden oo u haysta ninkan inuu millionaire yahay oo u haysta dharkan fake ah ee wada wato saacad fake ah oo kiyaala fake ah dhar fake iyo isagoo wada fake iyo magac fake ninkii waa la qabtay hadda kadibna waxa loo tarxiilay Tel Aviv oo markii horeba ka soo qusuusana waxa ku dhacay maadaama corona uu dhacay hadda la soo daayay oo la yiri bal corona banaanka joogo waxa la sheegay inuu hadda magacii bedelay oo soo socdo Morocco tagay passport Moroccan iyo magac af Carabigana aad buu wanaagsan yahay iyo magac Caraba iyo sheekh iyo hebel Europe wareegaya lama oga waa hadda la oranayay iska ilaaliya ninkii baa soo galay Europe oo magacii soo bedeshay laakiin wadanku jiro laakiin waxa la qiyaasay dadka qaran Moroccan passport sito oo marka dumarka dadka vulnerable-ka ah u baahan ama maartayna ama gabarayninkii kala tageen oo maartayna nin barato qaarkoodna mindset ay ku dhacday sorry guys gabdhaha waliba oo nin millionaire ama lacag haysta qaar inay ka fikiraan oo iraan kan lacag u haysta laakiin intooda iyo dahabkooda iyo waxaan ay haysto oo ka wada dhacay aan ku soo noqon hadaba anaga qaar ba oran kara Soomaalida kuma dhici karto Soomaalida waa sida Norway Sweden waxa ka dhacay 2008 halkan nin muslim baan hayri sheekh iska soo dhigay oo maartay qoladinka xaq jirka ahaa anagu markaan gabdhaha iyo wiilasha isweydiisanayno muxuu yahay Landera iyo riwaayadii aan ku jirnay iyo dahab intaas oo $10,000 $40,000 lagu mehrinayo
ninkani muslim uu noqday waa uu ii muslimay meeluu ka soo jeeday wuxuu yahay la garan maayo waa waddanka Norway meel kale ma ahaba halkan ayuu gabadh ku guursaday hal wiil bay u dhashay wuxuu ku yiri ima sheegi kartid markaan guriga soo galo markaan maqanahay cidna kuma iman karto gurigayga lama iman karo albaabkaas ku jir sida ninkii markii guriga uu bedelay wuxuu dhigtay sawirradii ku dhajiyay sawirkii weynaa ee ninkii odayga ahaa ee garanaysaa maxalday Afghanistan ka dagaalamayay sawirkiisu dhigtay website buu leeyahay meelahaasuu adduunka taagaa oo maaragtay dacaayada ka fidiya kadib wuxuu yiri businessman baan hadduu baan ka soo noqonaya wuxuu ka qayb galay dagaaladii ka socday Syria halka ayaa lagu qabtay kadibna waxa la geeyay Guantanamo Mareykanka qaatayba galab kamid ah iyo guriga fadhida oo xaajigeedu business ugu maqan yahay ayaa la soo galay gurigii ninkan ma garanaysa Dubai buu ii jiraa sidan uu yahay waa businessman hala soo saaray sawirkiisii inta dadu dilay inta dadu dhacay inta wuxuu qarxiyay iyo inuu gaanba ka ahaa intuunan gaan ka ahaa Europe oo dadkan gaanka wax dhaca ahaa markii dambe gar weyn iyo adduunyo la samaystay kadibna dagaalkii xagga uu ka qayb galay gabadhaasi naxdin iyo yaab baasaboorkii Norwegiga laga qaatay waxa lagu yiri kaliya iska noolow la soco cidaad baranayso ayaa lagu yiri la soco maaha ku aad moodo waan ogeyn inuu gurigan ku jiro sababtu ugu jirana ma ogeyn xayaalay wala kala wuxuu yiri magaceygana ha sheegin waa kala qoranahay dawladda u tag ilma yarna u ka dhalay wadaaga haddaba inay yahay ama gabar yahay maxaa ku diiday old fashion maxaa kamid ah guri baad imanaysaa saaxiibta oo xaas leh guriga markaad timaado waxa jooga rag baa laga yaabaa inay joogaan ama cid walba kadib mid gabadhii baad ku leedahay oo ninkan muxuu ahaa waa nin ma sha Allah waxaad leedahay waxay ku leedahay oo nin iska shaqeysta gabar bay kala tageen halkaas ku nool yahay waa maartay sida halkaas ka soo jeeda waa nin sidaas oo old fashion kadib waxaad leedahay haddaan isbarano inaan wallahi waan xiiseynaya loo sheegaya isagana that's old fashion maxaa kamid ah aroos baa tagtood qof kula kulantay waa isbarateen maxaa kamid ah school baad tagtay ama meesha shaqada tagtay qof Soomaali baad isku barateen ama dad baad isbarateen waa old fashion waad garanaysaa marka maxaa kamid ah adigoo tareen wada fadhiya ayuu soo fariido ku salaamay assalaamu alaykum wa alaykum assalam waad isbarateen halkaas aad maalin kalena isbarateen kadibna waad haddaad ka hesho waad baaraysaa waxaad leedahay wana halkaas oo tareen la furo yiri halkaas ka shaqooyo wala garanaya waa Ahmed waa Farah waa Jaamac waa Geedi waa old fashion taasa la yiraahdaa tooska ah laakiin tender bangalaya nin oo maartay been ku sheego halkan isku soo sawiro halkan soo isku soo ama Germany ama Norway ama Minnesota wherever it is lama yeelo walaga digtoonaada way halkan maaha kii aan naqaanay maaha waxa lagu wada jiraa inaad maartay dadku way kala duwan yihiin qofba waa si marka waxaad ogaataa gabar yahay walabada 2022 ku jirnaa kuma jirno sanadihii old fashion ka dareemi kara inay maartay meelo badan ay tahay laakiin digtoonowdaas aan ka wadaa dad gashan Netflix-ka documentary-ga imika waad yaabaysaa beenta ka socota oo ninkaas sameeyay waa naramid gabadhaas Norwegiga iyo gabadha Soomaali waxba kuma kala duwana waa isku mid waa gabar ama hooyo hore ha soo haato ama hore ha loo soo qabay ama imika xabaranayso mar walba digtoono wadaaga hadaba taad sooranaysa barnaamijkan umada anfacaya waa walaalkiin mahad waad qaybin kartaa runtii aad baad ugu mahadsantahay usbuuca dambe aan ku kulmayno sidaa iyo nabad gelyo keep smiling keep alive